shalayto waxaynu yeelanay doodaasoo ku saabsanayd xaaladda dalku uu marayo ee uu uga mahadnaqaya contribution aad u fiican baa mudanayaasha ka soo baxay waxaana saaka shir isugu yimi xubnaha business committee-ga si ay u soo ururiyaan aragtidii mudanayaasha ugana soo saaraan go-aan gole kaasoo inagaga bixi doona si toosa inooga bixi doona maanta inooga gudbi doona iyadoo aanu isu geynay dhammaan aragtiyihii golaha waxaa la diyaariyey qoraal ka kooban 6 qodob oo dhammaantood ah soo jeedinihii marka koowaad ka qayb qaadashadii golaha dee nimba meelba ku dhufto raggu waa kala dhiiranaa laakiin waxaanu isnidhi meel dhexe waxa la isugu keeno oo iyada laftigeeda taas inaynu ka qayb qaadano gurmadka abaaraha qayb baanu kaga soo daray waxaanu marka u qoray qoraalkii aan rabaa inaan idinku wargeliyo golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan iyagoo gudanaya waajibkooda dastuuriga ah iyo xilka ka saaran dadkooda markii ay qiimeeyeen xaaladaha abaareed ee dalka ka taagan ee maalinta ka dambaysa ka soo daraya waxaa golahu yeeshay fadhi lagaga hadlayo xaaladda abaareed ee dalka waxayna ka soo saareen qodobadan qodobka koowaad golahu wuxuu wasaaradda diinta ee awqaafta u soo jeedinayaa inay farto imaamada masaajidada inay bilaabaan qunuud salaadaha faralka ah sidaas si lamid ah ay iclaamiso salaad roobdoon ah oo laga qabto dhammaan gobollada dalka waa qodobka koowaad qodobka labaad golahu wuxuu xukuumadda u soo jeedinayaa in la dardargeliyo howlaha gurmadka abaaraha lana sameeyo qiimeyn joogto ah hadba heerka abaartu marayso dhammaan gobollada dalka qodobka saddexaad golahu waxa uu ugu baaqayaa hay'adaha caalamiga ah bulshada caalamka iyo wadamada somalilan saaxiibka la ah inay gurmad degdega la soo gaarhaan bulshada somalilan ee ay saamaysay abaarta baahsan ee ku habsatay dhammaan gobollada dalka qodobka afraad golahu waxa uu ganacsatada somalilan iyo shirkadaha maalgashaday dalka ugu baaqayaa inay si laxaad leh uga qayb qaataan gurmadka abaaraha sidii caadada u ahayd qodobka shanaad golahu wuxuu qurbajoogta somalilan ugu baaqayaa inay qaybtooda ka qaataan gurmadka abaaraha hogaamiyaasha bulshada iyo wakiilada dibadduna doorkooda ay ka qaataan qodobka lixaad golahu wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaadhaan dhan $50,000 oo u dhigantaa 425 milyan oo shilinka somalilan ah 6daa qodob ayaa lagu soo ururiyey doodii aad shalay ka dhiibateen golaha oo insha allahu tacaala aynu maanta iyadoo ah official xafiiska golaha uga soo bixi doonta haddii ilaahay idmo intaas baanu ku soo ururinay marka qodobka halkaasaynuna ku dayn doonaa sidaasaadna ka ogaan doontaan wixii qiimayn ah waxaa kaloo inoo dhiman arrimo maamul oo iyagana aanu idinla wadaagi doono oo ah cidda aynu u yeedhi doono cidda golahu wakiilan doono inay hawshaa kala shaqeeyaan xukuumadda oo howlo maamul oo iyagu aan ahayn inay halkan ku soo baxaan aan ahayn laakiin warqaddii kuwaad maanta inay naga soo baxdo waxaynu kaloo isla qaadanay oo iyana ku jirtay business committee-ga in xubno guddi ah oo guddiga business committee ay noqdaan guddiga mar walba korjoogtayn doona ee ka warhayn doona xaaladaha iyo waxyaabaha abaartay ku soo kordha xaaladda abaarta ayaa ahayd qodobadii la isla qaatay marka mudanayaal runtii doodiinii oon idinka mahadnaqayo shalayto inaynu waqti badanna gelinay dadkuna ama ragguna ay positive ka wada ahaayeen in wax lagu biiriyo hadday ra'yi noqoto iyo hadday waqti noqoto iyo haddii ay noqoto dhaqaaleba arrintii ahayd in la diro mudanayaal waxaan isleeyahay gobollada dee kama warliin marka waxaanu qiimaynay kharash ku bixi kara inaynu u diro 6da gobol cid u diro inaynu qaadhaanka ku biirinano markaa isla qaadano soo jeedinteennii ay noqoto wax qaadhaanka inoogu biira aanay noqonin kharash maadaama qof kastoo inaga mid xaaladda uu ka warhayo oo maaragtay iyo halka ay marayso